بسم الله الرحمن الرحيم. dhulka kan waa dhul dawladii Soomaaliyeed ee dalka ka burburtay noo dhistay tuug laascaanood ka ururtay oo maayarku madaxu yahay baa iibsaday dhulka waxna waa la laayay wixii iibsaday waxna waa malakumood kala u ma golid jaamacad ma noqon karto 15 kiiloomitir baa jaamacada magaalada laga saaraa وحافلها دحضوضة جامعات لقى لسه ما يقولين وحكلانو كحجينا وحكلانو halkan waxaanu ka hadlaynaa waad arkaysaa ummad badan baa isugu tibi oo reer laascaanood meesha aanu dul taaganahayna waad arkaysaa waa beesha la dubiyay waxaanu ka hadlaynaa meeshaas waxaanu ka qabnaa fikirka iyaanu ka hadlaynaa dadkaas oo isugu soo baxay halka cidda dhistay si waa khalad waxay ku dhistay hadeer lama ogola dhibaataana ka dhacaysa cidda siisana waa arinta waa ku khaldantay oo kama fiirsan ummadda reer laascaanood dadweynuhu sida uu qabo dad hanti kule baa jira dhulkii dawladdu lahaan jirtay iyo raggii hayn jiray oo sidii u hayay aan cid kala wareegtayna jirin oo dadweynaha u haysaba meeshaas weeyaan lama ogola dhibaata haddii aan la doonayn inay laascaanood ka korodho oo dadka laga hor keeno ha laga joojiyo dhismahaas sidaanu ka qabnaa sidaa weeyaan sidaanu ka qabnaa sidaa weeye fikirkaanu ka qabno jaamacadan lagu baaqeeyay jaamacadan waxay karintaa saddex beelood bay dhagax u yaala meel walba boonikiina waa kan halkan uu yaala haddii wax laga qabanayo dhulkii dhagaxa loo dhigay dawladii Soomaaliya iyo markii dawladdu burburtay iyo maamuladu u dhigeenna waa banaan yihiin ee ku haboon jaamacadda ku haboon waxaad leedahay halkan meel ku haboon maaha waa meel la boobaya dadkan ayaa la iska horkeenay dhibaata ka kordhisay halka haddii wax la farageliyo sidaasaanu uga digaynaa cidda wadata iyo cidda soo siisay iyo cidda maal ka bixinaysa waxaanu leenahay arrintaas waa arrin xaaraan oo khalada ha laga joojiyo odayaashoodii iyo waxgaradkoodii dadkuna ma ogola danina kuma jirto halkaa intaas beelood ay ka koobnayd ee dawlad ku magacaabana waa la garanaya haddii wax loo qabanayo sidii kale wax loogu qaban lahaa dadweynaha wax kule oo ay u madax bannaan tahay kale wixii dadka ka dhaxeeyay baa ku jira sidaa darteed yaan dadka la iska horkeeni sida odagu sheegay weeye dhulka horta wuxuu isugu jiraa dhul dad iska leeyahayba dad hantiisa ka leeyahay dhul dad iska leeyahay oo hantiisa ka leeyahay oo 3 sano 4 sano uu soo lahaa iyo dhul dee maamulku lahaan jirtay dawladdu lahaan jirtay oo loo hayay oo laga maantay dawladda loo dhisay dhulkan waxay ahayd wada xafiisyo midhan oo dawladdiya bay ahayd waan la dumiyay buugagtii baa tilay qalamadii baa yeelay shaqadaasi uga socotay horta waxa laga rabaa wixii halkan yeelay ee yaanashadu ka socotay cidii dumisay baa laga rabaa inay qaandowgeedii iyo hawsheeda ay keento dhulkana dhul jaamacad ka haboon maaha wax jaamacadana waa lagu gabanaya wax kala uga hooseeya dhulka kan waxa weeye waa santarkii magaalada dhexdeedii weeye jaamacada 3 meelood baa u bannaan annagu jaamacada waa dhuumadeed waa fiican tahay jaamacada la dhiso waana aqoonti bulshada weeye waa loo baahan yahay laakiin dhulka ku haboon in la geeyo wanaagsan in dhul dad lagu gababayo dad laga qaadayo in la yiraahdo jaamacada laga tiro dadka inniisa lagu jeediyo ma jaamacaduna waa hawsha lagu soo qaato jaamacadu waa importance waa bulshada weeye waa dhalinyarada waa soo koraysaa laakiin dhulka ku haboon gacmo ka siinaynaado waan ka howlgalaynaa waxaan ka laakiin dhulka dadku iska leeyahay ma aha in la yiraahdo xaskale jaamacada dhisaya oo dadka lagu handado oo dadka lagu sameeyo ma aha in dad lagu eedeeyana ma aha wixii waxaan abuuray iyo faradan wixii keenay ee maamulka geliyay baan qaba oo ka jawaabaya oo sababta qaba wixii ka dhacay ayaga qaba saraaca meeshan sida looga sheekeeyay weey meeshan waa meel dad leeyahay jaamacadda la sheegayana dadku ma diidana aad buu ogol yahay balse marka hore meel jaamacad geli karta maaha jaamacadduna ma dhulle ee 3 meelood oo waaweyn yaa la siiyo meel walba 10 baroor tahay ama ka badan tahay jaamacadda waa la doonayaa lama diidana meesheedii maaha waxaanu sheegaynaa markii hore ee meesha la dumiyey horta cadaalad xumaa lagu dumiyey waxaa lagu dumiyey nimankii dumiyey beebe iyo baromay soo kaxaysteen ku dumiyeen meesha maalintii hore ugu horreysayba si cadaalad xumaa oo dhaqan xumaa oo jiritaankeedu uu liito baa lagu dumiyey maantana sidii bay doonayaan inay ku dhisaan
dadkuna hadduu doonayo inuu jaamacadaha iyo dhulka la midkaa dhiso waxbaa la iska weydiiyaa dad gooniya horta ma waxaysto haddii dadku ku soo qaato mashaariicda meel ku habboon bay u baahan tahay jaamacaddu adduunka oo dhanna kama jirto jaamacad magaalo dhexdeed ku taalla waa la ogyahay jaamacadda iyo iskuullada dibaddaa loo saaraa si aan dadka wax dhiganaya ugu walaahoobin magaalada jaamacadda waa la ogol yahay meel jaamacada maaha waa meel si kalaa markii horena niman gooniyaa damcayntay burburiyaan oo niman ka iibsadaan sidaa inay lacagtooda ku qaataan oo hawsheeda hore sidaasay u ahayd haddeertana meel wax ka suurtoobayaan maaha meel la dhisaya maaha meel dadku isku ogol yahay maaha waa meel dad gooniinay dad baa guryihiisii la dhistay la burburiyey uu dhistay ashtakadu haddeer intaa ku ekaan mayse dadkii guryihiisa laga burburiyey waa rabaan guryahoodii wixii ka burburiyeyna waa ka rabaan dawladdii hore ee burburisay tiisi riyaalay ahayd tanna haddeerto waa tan inji-ooyada ku soo bixinaysa riyaale markii dambe waa diiday waa mamnuucay markuu arrintii ogaaday ma aha dadka in laysku hor keeno maalintii hore dhibaatada somalilan ka gaadhay ee haddeer ay ku kala maqan tahay meel yar oo la faadhfaadho intaa leegoo kala shaala ah 600 oo nin ku dhimatay tanina waaba magaalada dhexdeedii waxaa weeye maaha dadka waxaan maalayaciga in had iyo goor la hor keeno oo dadka lagula dhaqmo meel ay ka suurtoobayso maaha saasayna u bannaanaanaysaa ilaa wixii burburiye aanu isugu nimaadno oo aanu kaga xisaabtanno guryahayagu u burburiyey asalaamu calaykum waraxmatullah magaalada oo dhan dhinac kasta haddii loo baxo dhinac kasta meel kasta jaamacad oo noqonaysa meel kasta waxay noqonaysaa waxa weeye waxay noqon meeshan waa yaan hanti lagu lumin yaan lacag lagu lumin yaan dadka la iska horkeenin iyo dawladda yaan cawamad ka dhicine arrintaa dib ha loo dhigo jaamacadda arrinteeda dib ha loo raro guddi ha loo saaro darbey ha loogu saaro magaalada koonayaasheeda haddaanu nahay odayaasha deegaankana meel daryare la yidhahdaanu siinay jaamacadda oo jaamacad ku habboon oo dalxiis ku habboon oo agriculture ku habboon oo ardaydu ay wax walba ku samaysan karayaan anigoo ka mid ah dadkii laga dumiyey guryaha halkaas waxaan dheena siiyey 89 laga siiyey boos oo oday waayeel oo aabbahay oo koonfur ka soo qaxay halkaas oo aan ku dhalay 7 aan waan deganaa oo xoog laga qaaday maalintii beebayaal iyo maxaan daa baroono guriyay jiyo sandaqad been sidii loo qaaday loo geeyay dhigaan meel ay martay lahayn maxay tahay carruurtii meeshii ana suuq ka jira ana waxaan suuq ka jirnaa carruurtii yar sandaqadii laga qaaday oo meesha qorx looga bixinay sandaqadii iyo jinkadii meesha taaleen meel la meel geeyay hada ilaa hada war loo hayn haye kuwa boon jaamacad anaguna macnaha sidii waan waxaan nahay baniyaan waxaan saddex deganahay wadashin meesha jaamacad laakiin meesha jaamacad kuma boon laakiin meesha meel waa suuq waa xaafado waa dad dan yar baa deganaa oo marka carruurtooda ku konsareeyay hadeer waxa weeyaan diyaar goobaska iyo bandoonan guriga iyo bandoonan hadeer waxaan deganahay bushash odaygii waayaalka meesha laga qaaday isagoo wuxuu meel buu yaalaa isagoo mariina laakiin falka baradeen aniga qurayso cid kale xanaaqaas waa dhisi waxyaabaha ka dhacaya magaalada laascaano ilaa maalintii ay qabsatay maamulka Soomaaliland buuq iyo qayla ka dhacaya niman baana ku soo dhuuntay la yiraahdo الاتحاد oran maayaan waa الاتحاد oo kuwii hore gabo saliid ka dagaalamay hadda day halka waxa laga dubiyay 8 guri oo Ingiriiska dhisay hormay ku soconaysaa mise waa ya 8 guri halka laga dubiyay ilaa maalintii waa la isku haystaa niman xaq jira oo aan la garanay jaamacadda halka kale ma noqon karto dhibaatooyin baa meesha soo maray rag baa ku soo luga go'ay rag baa ku go'ay inta rag baa ilaalinayay wiilayadoo soo seexday baa waxay dabcinayaan tomi banka ku sameeyaan hadda ma garato maamulka u sheegayna wax ka soconaya ma jiraan dadka yaan la isku dilin jaamacaddana waxaan u dhagaxnay geeska magaalada dhul 200 iyo 200 dhan baanu calaamadinay anaa soo jeexay injineerkii magaalada ee darada inta lagu shaqaysanayo dadweynuhu ka dulqaadba aqalada waa lagu waxaanu ka doonaa dadka guryihii la dumiyay ee dadweynaha ee Ingiriiska dhisay qalabkii lagala tagay halka yaala in loo soo qabto ee laga furtay kale waan ku dareemaa soo furaa waa la furtay